sababta aan dumarka u canaananayo waxa weeye ninku haddii xumaan la yimaado badanaa isaga xumaanta ku ekaataa laakiin hadday gabar xumaan la timaado iyada kaliya ku ekaan mayse bulshada oo dhan ayay fasahaadinaysaa meel fogba ha eegin tiktoka macaasida ugu badan dumarkay ka socotaa nin haddii uu isi soo qaabiyo wax laga arkaanba jirinba lafihiisa maxaa laga arkayaa laakiin fitnada ugu badan ee tiktoka waxay ka socotaa dumarka aan asturnayn ee tiktoka ka buuxa midda kale haddii ay gabari dhaqan xun tahay oo af xun tahay xitaa carruurteeda way saamaynaysaa waayo carruurta inta ugu badan waxay la nool yihiin oo ay la joogaan hooyooyinkood waxa ay hooyadood tahay bay carruurtaasi noqonaysaa aabbuhu haddii uu xun yahay hooyaduna ay fiican tahay hooyadaasi ilmaha ayadaa saamaynaysa oo waxay hooyadu tahay bay ilmaha noqonayaan muuqaalkeena maanta dumarkii xadkii ka baxay oo isi soo qaawinaya oo xilligan soo badanaya ayaan yaro canaananayaa dumarka wanaagsan ee boqoradaha ah ka hadli maayo waayo iyaga wayba wanaagsan yihiinba laakiin dumarka aan xishoonayn ee baraha bulshada dhanka negatifka kaga jira ayaan yaro kululeynayaa ee ii dulqaata waxaan ku jirnaa taxanaheeni halaag qaybtaana waa qaybtii afaraad waxaan kaga hadli doonaa qaybtan afraad dumarka isa soo qaawiya ee xijaabkii dhigay ee baraha bulshada ka buuxa qaybtii hore ee saddexaad ee taxanaheena halaag waxaan ku soo qaadanay saamaynta ay heesaha leedahay haddaba intaan mowduuceena usii gudagelin fadla muuqaalkan like noo saar sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa kuna soo biir kanaalkeena xogbaahiye adigoo subscribe taabanaya waagii hore dumarkii joogay aad bay u xishoon jireen gabar madaxeedu qaawan yahay lama arki jirin ka hadli maayo soomaalidii hore ee madaxa faydan jirtay ee xiran jiray dharkii loo yaqaanay guntiinada ee waxaan ka hadlayaa soomaalidii nooleed wixii burburkii ka dambeeyey 10 sano ka hor 20 sano ka hor iyo wixii la mid ah soomaalidii hore ee xiran jiray dharka guntiinada loo yaqaano oo aan gabdhaha asturayn diinta aad ugu yarayd islaamka si fiican uma gaareen mana fahansanayn laakiin burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyay diinta islaamka si fiican ayay u soo biyo dhigtay Soomaaliya malaha burburkii nagu dhacay 91dii marna faa'iido inoogu jirtay marna khasaare inoogu jirtay faa'iidadu waxay ahayd in diinta islaamka si fiican ay noo soo gaartay wixii burburkii ka horeeyay waxa la sheegaa badanaa masaajidyada waxaa ku tukan jira odayaasha oo kaliya laakiin maanta diinta si fiican baa loo fahmay gabdhahan isqaawinaya ee hadda tiktok ka neekinaya 10 sano ka hor shafkooda iyo madaxooda ma muujin jirin oo way is asturi jireen laakiin maanta waa qof ilaahay aan ka xishoonayn dadkana aan ka xishoonayn fanaanad baa tiri waagii aan fanka ku cusbaa waan xishood badnaa laakiin hadda ma xishood badni waa hadal la yaab la runtii 10 sano ka hor gabdhuhu markii xilliga cishaha xaafadda yimaadaan hooyada way canaanan jirtay way ku qeylin jirtay naaya halkay ku maqnayd maxaa xilliga u soo daahday xagee la wareegaysay canaan baa dusha looga tuuri jiray laakiin dumarka maanta jooga waxay ku leeyihiin nin aan jeclahay baan magaalo hebel ugu tagayaa sidoo kale waxaa arkaysaa gabar aan la qabin oo qol kiraysanaysa intay reerkeeda ka tagto waa waxyaalaha la yaabka leh ee xilligan soo cusboonaaday waagii hore haddii ay jirtay gabar iscadaysa waa la takoori jiray waa la canaanan jiray ragguna agtooda qiimo kama lahayn hadda waqti fogba ma ahayn waa 10 sano ka hor balse maanta iscadaynta caado ayay noo noqotay oo waa la qabsanay waagii hore 10,000 ee dumarka ahba hal gabar baa iscadayn jirtay oo dumarka iscadeeya aad iyo aad bay u yaraayeen waliba faraku-tiris bay ahaayeen waxaa la dhihi jiray heblaaye hebel oo halkaa ku nool waa gabar iscadaysay balse maanta aan nool nahanay 10,000 ee dumarka ahba qiyaastii 9,000 way iscadeeyeen 10 sano kadibna arinku intaa waa kasii ballaaranayaa xitaa ragga maanta jooga waxay dumarka ku dhiirigelinayaan inay iscadeeyaan iyagaaba ku khasbaayaba waxay ku leeyihiin doqon iyo habeen baa madow raggiiba haddii ay noocaa yihiin dumarku maxay noqonayaan
waayo raggu ilaahay wuxuu ugu talagalay inay mas-uul noqdaan. Waagii hore haddii lala yaabi jiray dumarka iscadeeya, maanta waxaa la caayaa oo la canaantaa oo la takooraa dumarka aan iscadayn ee midabkooda ilaahay u dhaliyay haysta. Isbeddelkan weyn ee nagu dhacay la yaabi maayo, waayo adduunka marba mar kasii dambaysa dhanka xumaanta ayuu usii soconayaa. waxaa soo socdaa kasii daran. Dumarkii hore iyaga oo aan cilmi badan lahayn ayay wax kasta ku ficnaayeen. Gaari bay ahaayeen, ilaahay bay ku xirnaayeen, raggoodana way adeeci jireen, ubadkoodana si fiican bay u korin jireen. Hooyooyinkeenni hore macallimado bay ahaayeen, dhakhtar bay ahayd, wax kasta ayay ahayd, iyada oo aan weliba wax jaamacada ka soo bixin. Dumarkii hore aad bay u xishood badnaayeen. Oday baa waxa uu iga sheekeeyey, dumarkii hore markii la guursado habeenka koowaad ee sariirta iyadoo xishoonaysa ayay soo fadhiisan jirtay, maro ayay madaxa saaran jirtay oo isku duuduubi jirtay, iyada oo ka xishoonaysa inay aragto ninkeeda qaba ee xalaasha ah oo qaawan inay aragto bay ka xishoonaysaa, sidaa daraaddeed bay madaxa maro ugu duuduubanaysaa. Laakiin dumarka maanta nool iyagaaba waxay ka sheekaynayaan qaabkii loo dabsaari lahaaba. Dumarkeena maanta gaalo ayaa u soo hoostustay, kuwaasoo war ku akhrinaya, ninkaasi u adeecaysaa, ma addoon baa tahay, naa meesha isaga soo tag, naa kaalay shaqayso. Goortii ay ninkooda ka soo furaanna meel cidlo ah bay uga tegayaan, siday u leeyihiin shaqayso buu waqtigii ku dhacayaa. Islaamkana nidaam qurux badan oo wanaagsan buu u dejiyey. waxaa la yidhi adiga boqorad baa tahay shaqayn, boqoradu ma shaqayso, adiga waxaa tahay boqoradii gurigan ilaalin lahayd. waa meesha ugu weyneyd, qoyskana waa meesha ugu weyn ay bulshadu ka asaasmato. adigoo gurigaaga fadhiya ayaa lagu soo shaqaynayaa baa la yidhi. kuwana waxay leeyihiin naakac, naabax, naameelaha aad, waa la waalayaa. wiilkan tiktoga waxa uu soo geliyey isaga oo buumo qaba oo xubintiisa taranka ay muuqato, laakiin aniga buller baa saaraya oo xoogaa waa yaro qarinaya, waayo ma qurux badna in cawro iyo wixii lamida la arko. kollay muuqaalkan qurunka aan xishoodkii ku jirin, kollay waa aragtay, ama Facebook ku arag ama TikTok ku arag ama meel kale ku arag, kollay waa arag. anigoo nin ah ayaaba ka xishoonay inaa waxaa daawado, sababtoo isaga waa nin rage, ana nin raga ahay, wuxuu leeyahay baa leeyahay. laakiin waxyaalaha aan la yaabay baan kuu sheegaya oo muuqaalkan usoo qaatay. badanaa dumar baa soo qaatay, xitaa xishoon mayaan. ninka cawradiisa iyagoo daawanaya ayay dadka dhexdooda la soo hor istaagayaan. qaarkood waxyaalaha ay ku hadlayaan waad la yaabaysaa runtii. dumarka waxyaalaha ay leeyihiin waad ka yaabaysaa. qaar baa waxay ku leeyihiin bahalkaasa u baahan, xubintiisa sheegayaan, baan u baahanay, toos bay u caddaynaysaa. qaarna waxay ku leeyihiin xubin weynaa. marka dumarka maanta jooga qaabkii ay xishoodkii uga tageen bay kuwa caddaynaysaa muuqaalkan. bal aniga gabadhan baa iga yaabisay oo muuqaalka ka falcelisay oo dhuwiid ka samaysay. bal gabadhan waxay ku hadlaysay ila daawo. wejigeedana xoogaa buller baa saaray, waa qarinayaa si aan wejigeeda loo arag. kolley iyadaa social media soo gelisay in la arko, iyadaa ugu talagashay, laakiin annaga uma baahanin wejigeeda oo waan iska qarina. laakiin muhiimaddu waxa weeye waxa ay dhehayso. bal ila daawo. ninkaas qofkii aqaanahay uu soo xiriira muddo ana waxaa saara serious soo qabta muuqaalka kusii dheeraan maayo, adiga iska faham. xilliga aan maanta joogno dumarkii sida ay inoogu horeeyaan, bal iska fahan. waa ka gudbayaa. waayadata waxaa soo batay furninkii oo laba isqabaa wax arkaysa inay isfurayaan. waxyaalaha ay isku furayaanna waa wax si fudud loo xalin karo, laakiin wax weyn bay intay ka dhiyaan bay isfurayaan. furninkii heer uu gaaro 60%, 70%, ama 50%. tusaale 100 qoys ee isguursataba 50 kamid si degdeg isku furayaan. waxyaalo aan micno lahaynna waa la isku furayaa. cajiib. midda kale waxaan isweydiiyaa oo markasta maskaxdeeda kusoo dhacda, dumarkan isqaawinaya hooyo ma lahan miyaa, walaalo ma lahan miyaa, aabbe iyo faamil ka dambeeya ma lahan miyaa? waayo haddii aan aniga maanta khalad sameeyo, waalidiintay baa i celinaya,
walaalkay baa ila talinaya, laakiin iyaga qof la taliya ama walaal iyo wixii lamida ma lahan miyaa, oo macidlay ka dhasheen. qofka haddii uu mar khalad sameeyo waa caadi, laakiin khaladkii in lagu soo noqnoqdo maalin walba muuqaal xadkabaxa la soo geliyo, qaarkood waa la yaabaysaa. badankooda 99% iyaga oo xijaaban bay marka hore soo galeen, iyaga oo asturan, kadib maalin dambe si u faydayeen, maalin dambe xijaabka tuureen, maalin dambe si u socdeen bay xadkii ka baxeen. waxyaalaha kale aan isweydiiyo waxaa ka mid ah gabdhahan tiktoka ka neekiya. horta tiktoka ma qolkoodii bay u haystaan? dharkii ay qolka ku joogeen ayay intay iska soo duubaan soo gelinayaan, waxyaalo aan macquul ahayn. xitaa iyagoo sariirta ninkooda jiifa ayay iska soo duubayaan. ma jirto maro xiran isdhihi maayaan, madaxa daboolo isdhihi maayaan. gabar muslimada baa tahay oo waxaa lagugu talagalay inaa xishootid oo is asturtid. waxaa isma weydiinayaan sideeda kusoo galaysa tiktoka. midda kale, dumarka taalantigooda ma hees inay iska duubaan kaliya miyaa? wax kale ma lahan miyaa? maxaa loo la-yahay gabar macluumaadka iyo xogaha iyo taariikhda waxyaalaha faa'iidada badan inoo soo galaysa? maxaa loo la-yahay gabar shiikhad ah oo diinta islaamka gabdhaha barta iyo raggaba barta? maxaa loo la-yahay? maxaa loo la-yahay dumarka talooyinka bixiya? waxaas maxaa loo la-yahay? dumarka badankooda waxbay barteen, qaarkood xitaa jaamacado ayay ka baxeen, laakiin taalanti aan hees iyo jaas ahayn wax kale ma taqaanaan miyaa dumarow? bal dumarow isku laabta oo su-aalaha isweydiiya. bulshadu meesha ay ka dhisanto waa dumarka. raggii hore waxa ay kartida iyo haybadda la lahaayeen ma taqaanaa? waxay haysteen hooyo macalimad ah, xaas naxariis badan, iyo gabdho uu dhalay oo baariyaal ah. laakiin ragga maanta jooga waxay u liitaan ma taqaanaa? dumarkoodii baa sii lumiyey, waayo nin walba ama gabar walba waxaa soo koriyay oo gacanta ku haysa tarbiyadiisa waa maamo ama hooyo, waayo aabbaha inta badan waa iska maqan yahay, shaquu jiraa. mararka qaar waxaa dhici karta aabbayaasha qaarba inaysan waddankaba joogin oo waddan kale ay jiraan. dumarow, maxaa xal inoo noqonaya haddii xubnihii qiimaha badnaa ee boqolka geela laga bixin jiray maanta si firi ah aan tiktoka uga daawanayno? gabar kasta xubinteeda ayay muujinaysaa. xitaa dumarka shiikha isku tilmaamaya badankooda in yar unbay feedaysaa ama marada isku dhejinaysaa. dumarka qaar aan tiktok ku arka haddii aad aragto waa la yaabaysaa runtii. xitaa waxay ka sheekaynayaan qaabkii loo dubayn lahaa. war xitaa haddii tiktoka uu caadi ka noqon lahaa in adigoo qaawan la soo galo, dumarka qaar baa laga heli lahaa, laakiin tiktoka ma ogola. qof qaawan in tiktoka laga soo muujiye ma ogola. haddii uu leefka waa laga xirayaa. haddii uu janalkaas yahay tiktoka ahna in la xiray u badan tahay. tiktoka marka ma ogola. haddii laakiin la ogolaan lahaa waxaa dhici lahayd in kuwo qaawan ay kasoo bixi lahaayeen. ka waran nin 40 sano ka hor dhintay haddii maanta lasoo noolayn lahaa, wuu yaabi lahaa. wuxuu isdhihi lahaa talow kuwaani ma Soomaali baa? ma luqadii bay barteen? talow kuwaan Soomaali ma ahane? wuu yaabi lahaa. xitaa waxaa dhici karta inuu isdhaho kuwaan Soomaali ma ahane waa gaalo, inuu isdhaho dhici karta. waayo 40 sano ka hor dadkii noolaa iyo maanta isku mid ma ahan, xitaa iskuma dhowaa. abbaayay soo ma ogid haddii aad isqaawisid oo weliba kusii indha adeegtid oo sii wadid in aad ku seegi kartid booskaaga jannada ah. waayo qof walba oo maanta adduunka saaran, gaal iyo muslimba, waxa uu leeyahay boos janno ah iyo boos naar ah. midka uu u shaqaysto buu hadhow aadayaa. haddii uu janno u shaqaysto, jannadaasuu helayaa. haddii uu naar u shaqaystana, naartaasuu helayaa. ma ogtahay hal hees oo baraha bulshada aad soo dhigtid oo ay kuu daawato dad aad u badan, dembiga inuu kugu sii badanayo? haddii aad jaastid oo weliba qof ajnabi ka ah ku horjaastid ama muuqaal iska duub ama caadi uga horjaas, dembi baa kaa soo gaaraya. dunuubtaas waxaa dhici karta inay gaaraan malaayiin dembi ah. dembiyada qaabka uu ku faafo taxanahan halaag qaybtiisa 4 ee aan soo dhaafnay ayaan kaga soo hadalnay, weliba gaar ahaan heesaha. marka dib ugu laaban maayo, waan kasii gudbayaa. nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku tilmaamay in ay ahlu naar yihiin dumarka isqaawiya. ka waran xadiiskii saxiixu muslim ku qornaa,
waxa uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam laba sifo oo ka mid ah dadka ahlu naarka ah weli ma arkin. waxaa ka mid ah dumar dhar qaba haddana qaawan. micnihii wuxuu nebigu ula jeedaa dhar bay xiran yihiin haddana way qaawan yihiin. waxaa ka mid ah dumarka marooyinka khafiifka ah xiran iyo dumarka dharka isku dhejinaya, ama dabada isaga dheji ama xabadka isaga dheji. kollayba xadiidka waa soo hoosgelaysaa. sidoo kale isagoo xadiidka sii socda wuxuu nebigu sheegay in dumarkaasi ay taagan yihiin madaxooda. waxaa ka mid ah waa dumarka ku duuduuba timahooda si uu madaxooda u taagmo. qaarkood waxay sameeyaan si uu madaxooda u taagmo galaas ayay geliyaan, qaarkood mare ayay ku duuduubaan. kollay qaar walba si bay sameeyaan. calaa kulli xaal waxau nebigu ka hadlaya waxa waaye waa dumarka madaxooda soo taagan yahay. dumarkaas timahooda soo taagaya iyo kuwa dharka xiran haddana aan xirnayn ee qaawan. nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam jannada geli maayaan, inay galaan iska daaya xitaa urta jannada heli maayaan. walaal waxaasoo dembiya maxaa kuu geynaya? maad noqotid gabar asturan oo ilaahayda caabuda, sharafteeda iyo sharafta waalidiinteedba ilaalisa. dumarkeena quruxda badanow, walaalayaan aan ilaahay ka cabsanno. adduun baynu joognaa, waa meel laga sii tagayo wallaah. sababtoo ah haddii aad sii noolaatid oo xitaa ilaahay uu ku sii nooleeyaba, da' baan ku dhaafayn. haddii aysan da' ku dhaafinna geeri baa ku dhaafayn. fadlan aan xishoonno, aan is asturno. midda kale waxaan idiin sheegayaa, nin kasta waxa uu rabaa gabar sharaf leh oo asturan. xitaa ninku haddii uu yahay ninkoo la dhuuq ah oo noloshii ka dhacay hadduu yahay, wuxuu rabaa gabar asturan buu jecel yahay. marka ma waxaad isku qaawinaysaa in aad nin heshid? haddii aad saa ku fakaraysid, runtii waad khaldan tahay. waayo raggu waxay rabaan dumar asturan. waxaa jira dumar kale oo aan nin dartood isku qaawinaynin oo iska baashaalaya. iyagana waxaan u sheegayaa waad ku mustaqbeeli kartaan, ilaahayna waa idiin caroonayaa. dumarka tigtoga iyo meelaha ka niikinaya oo isi soo qaawinaya, waxaan dhahayaa walaalaha, hooyada iyo aabbaha sharaftooda ilaali. sharafta waalidiinta ha dilin. iyaga oo si fiican kuu soo koriyey baa laga yaabaa inay dadku dhahaan markii ay ku arkaan adigoo isu soo qaawinaya, alla tan waalidiinteed bay ka keentay xumaanta. marka waalidiinta xumaan baa u soo jiidaysaa. ilaahayna aan ka cabsanno. taxanaheenna halaag qaybta 5 ee ku xigta qaybtan waxaan kaga hadli doonaa khaniisiinta oo maanta xuquuq loo samaynayo iyo heerka ay maanta marayaan khaniisiinta. intaas ayuu mowduuceena ku egyahay. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.